nin balwada ka badatay tramadolka bilibiliga qofka hadii daroogada ka batara waxa rabuu sheegaya hadii uu cabto yahay ama tobaaka tustay maxay dadka kale u tusiwis maxaa al-shabaab ku tustay madaxay oo badsaday isticmaalka geedaha nabadda xashiish iyo kaniiniyada istiinka laga raadiyo ayaa maalin uu hawada si fiican u galay waxay saqradu ka tustay inuu ku biiro argagixisada waana ka dhabeeyay isagoo mootafeekon ku tagay deegaanka Basra ee gobolka Shabeellaha Dhexe si uu qayb uga noqdo daadinta dhiigga shacabka Khalid Cabdullaahi Cigaal madaxay ayaa markii uu tagay deegaanka Basra waxay kooxdu u sheegtay in lagu darayo qaybta dilalka gaadmada fulisa iyo dabagalka shakhsiyaadka ay halista u arkaan uuna ka howlgeli doono degmadii uu ku dhashay ee Balcad waana la soo diray si uu u fuliyo shaqada markaasi loo baahdo waxaana madaxay uu ku soo laabtay Balcad maalmo kadib ayuu u tagay isagoo sarqaansan sargaal uu yaqaanay oo nisa ka tirsan waxaana uga waramay wixii uu kala soo kulmay qawaarista hadaladiisa oo isburinayay ayaa shaki gelisay sargaalka taasi oo keentay inuu u gudbiyo qaybta baarista ee nisa al-shabaab ay dhaayo nolol shaqee yaa ku dhahay nolol shaqee oo shabaab ka tirsan mid wallahi ciisiise laakiin magaciisa afgarashadu ee uu yaqaan balcado mid wuxuu u geey shaamidii tabliiq allah oo Basra joog mid kale Ismaaciil Fiido allah u geey ali dhaayo nolol shaqeene muaskar ku dirina tabar ayaa dhaay Cabdi Satar oo ah sargaalkii eedeysanaha uu yimid ayaa maxdarkan warbixin ku siiyay garsoorka ciidamada qalabka sida markuu iimaanayna qof wuxuu ahay saqrad ay ka muuqato oo balwad soo isticmaalay oo ahay Khalid yani xashiishada ka soo ureysay carabkiisana wuu cuslay oo balwadana aad u isticmaalo tramadolka bilibiliga iyo xashiishada aad u isticmaalo dhowr su'aalan weydiiyay dhowr su'aal markaan weydiiyo marba si uu ugu jawaabay Khalid waxaan iri al-shabaab ma aaday haa ugu dhahay goorma aadaan dhahay waa baxay saddex habeen aan ku maqnaayo dhahay saddex habeen ma ku maqnayd haa marka hore aadaysay qaabkee ku aadaan dhahay wuxuu iri waa la yimid nin la yiraahdo Ciise Siisiya yimid oo dhahay oo al-shabaab ah oo Balcad laga yaqaan oo reer Balcad asalkiisa oo jabaada ka tirsan ay yimid oo dhahay wuu i watay wuxuu i geeyay oo dhahay Basro wuxuu i dhahay oo dhahay ila shaqay hayaan dhahay oo dhahay waa kula shaqeynaa waa isoo fasaxay oo dhahay magaalada imid magaalada markaa imid Ciise uu yimid oo dhahay markuu yimid wuxuu i dhahay dowra lagu furaa diyaaran u ahayaan dhahay oo dhahay intaas markaan kala sheekaystay biswaayaan dhahay xogaa ii fadhiyaan dhahay waa la joogay waxaan iraadiyay Ciise inta isku aragteen Ciise waa isoo wacay oo dhahay Ciise waxaan iraadoo ku soo wacay telefoonka ka soo wacay Ciise wuxuu yiri telefoonka iga soo wacay waa iga dhumay ma ka dhumayaan dhahay haa ayay waayaan dhahay checkpointigan joogay aniga shaqadeeda iska sii watay waa u soo noqday checkpointiga xilligaas shiftigeega uu dhamaado waa soo bixi rabay Khalid horaan u soo waday hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee nisa baarihii ugu qornaa galkan ayaa natiijada ka soo baxday baaristiisa la wadaagay garsoorka ku-xigeenka xeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida Dhamme Bashiir Macalim ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanaha ay ku xukunto qodobadii uu ku eedeeyay Khalid Cabdullaahi Xuseen Cigaal madaxay oo isagu la taagan al-shabaab ayaan ku biiray degmada Balcad ee dawladdu hayso gacanta ku hayso in hal qof oo qof xoog uga wato aysan suura galaynin taas macnaheedu waxa waayay marmarsiya baana waay isaga aaday qiyaarkiisa ku aaday Ciise Siisi meeshiisa ugu tagay maxkamaddu maray wax ka weydiinaysa wuxuu yiri Ciise Siisi hore u taqin ma aqaanin oo dhax kadib haddana isku xaafadaan ahayn oo halkaan marqaatiga aan keenay oo ciidamada ammaanka ka tirsan oo sheegay Ciise Siisi in la yaqaano macruuf oo yahay laga yaqaano maxaa la yiraahdaa degmada Balcad oo uu ka mid yahay khawaarijta hadii uu cabto yahay ama tobaaka tustay maxay dadka kale u tusiwis gudoomiyaha degmada maxay u tusiwis maxay dadka kale u tusiwis maxaa al-shabaab ku tustay waa xaqiiqo asiga tagay isaga kamid ahay waxaan maxkamadda si xushmad iyo qadirin kaga codsanaynaa in ay ku qaado qodobka aan ku soo eedeynay si looga amaan helo dalka iyo dadkuna ay uga degaan maxkamaddu waa maasanta qareenka eedeysanaha Abukaata Caarif ayaa jeediyay difaaca muwakkilkiisa isagoo u codsaday in la siiyo xoriyadiisa mudane gudoomiye garsoorayaal Khalid Cabdullaahi Xuseen shabaab baan tagay wax ka jira ma jirin waxa dhab ah sida marxaatigu sheegay
in daroogadu iska badiyey wuxuu sheegayana uusan ogeyn wuxuu u yidhi maxaan kuu sheegaa waa maqnaa oo habeenaha maqnaane warkuu ku quruxsanayay qofka haddii daroogada ka batana waxa rabuu sheegaya kolley haddii qofka maandoorihi hadduu asagoo isticmaalo oo asagoo isisarqaamiyo wixii yidhaah waa lagu ciqaabayaa waxaa xabsiga ku riday asaga maandooriyuu isticmaalay iyo hadalbadidiisii baa xabsiga ku riday laakiin waxaan ka aadaynaa dhinaca oo ah xagga baraa'ada xaggeeda waxaa la keeni lahaa wax uun mubaraad ah oo caddeeya inuu shabaab aaday inuu shabaab ka mid yahay waa la keeni lahaa baaristayda baaris waa keeni lahaa ma keenin waxaa cad warkiisaa xiray waana muuqataa waxaan maxkamadda sharafta le ka codsanayaa in ay xorriyaddiisii dib ugu celiso maxkamadda waa mahadsanta maxkamadda maxaa ka codsanaya inay cabsi fiiso gaashaanla dhex maxamed amiin cabdulle aadan oo ka tirsan garsoorka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa ugu dambeyn fadhigan soo xiray cabdiraxmaan gacan warbaahinta qaranka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe